daawadayaal soo dhawaada jamaahiiray muuqaalka la sheer gareeyo waxaan rabaa inaan ka hadlo nimanka horgalada ahaa nafsigii ay ka galeen tolkood baa ka soo baxay mahad cambaashe oo ku go'doonsan og mahad cambaashe oo la hareeriyay hub wuxuu haystayna laga qaatay ayaan darro ayaa haysata hubkaasi waa hubkii waxa weeye markuu sool joogay canshuurta magaalada Laascaanood uu ka iibsaday ayaa laga qaaday mahad cambaashe jeegaanta ay ka qaadatay waa lagu sugay nafsiga waxaan maqli jiray diin baa sida maalinka waxa weeye boqolaad uu ku soo ayuursada nafsiga baa maanta mahad cambaashe soo ayuursaday ninkii mahad cambaashe ahaa maleeshiyaadkii la socday ee beeshiisa dhulbahante ayaa soo hadlay waxayna sheegeen in hubkii laga ururiyay tiknikadii waxa weeye ay wateena laga qaaday la hareeriyayna saasa waxa weeye waa iyaga dhanba square baa laga qabtay hor iyo gadaal midig iyo bidix waa laga digay meel oo ma bix kara ilaa la iskuma hadlayn karo marka khilaafka iyo in la hareereeyo oo mahad cambaashe hubkii uu wata laga qaado maxaa sababay taas rabaa inay isdul taago maxaa keenay iyo sidoo kale horgal faratoon horgal indhayndo iyo sidoo kale horgal sareebaan koore oo ku soo wajahan og talo wadkooda soo doonteen mise maxbuus bay u noqon doonaa firdhiye labada waa mid inay wadkooda soo doonteen iyo inay waxa weeye firdhiye maxabiis u noqon doonaan wax u dhaxeeya ma jiro jamaahiirtu ka warayso nimankaasi magaalada og bay bari ku soo wajahan yihiin arinta waxaan rabaa inaan ka hadlo marka mahad cambaashe maxay ku timid in hubkii cuslaa laga qaaday hubkii waaweynaa oo maxbuus laga dhigo la hareereeyo maleeshiyaadkii Muuse Biixi ay hareerayaan maxay ku timid mahad cambaashe ayaan hore waxaa Soomaalidu wax ku maahmaadaan jiirkii lahaye jiriid kama qoslo ayaan hore markay waxa weeye SNM-tu qaybtii waxa weeye habar jecelo ay ku soo duushay deegaanka muxuu ahaa reerkiisa ay ku soo duushay SCC ay ku soo duushay nin ay ku dilay nin ay ku dhaawacayeen dagaalkii yani muqdarkeen lagu qaadahayay taasoo ka xumaaday mahad cambaashe wuxuu yiri waxaan isku ogeyn annagoo qarankii oo yani maamulkii Soomaaliland iyo qaranku yani Soomaaliland ma ka wada annagoo SNM oo isku duuban ayaa lagu heshiiyay buri inaan SCC ku duulo soo celino ciidanka SCC aan la dirno laakiin habar jeclo wixii waxa weeye maleeshiyaadka Muuse Biixi ama SNM kaga jiray inay beeshayda ay ku duulaan raali kama hibuuli arintaasina waa dulmi waana khalad buuli 24 saac habar jeclo askarta kaga jirta maleeshiyaadka Muuse Biixi ee oo ku sugan qori lugad ee boqdarkayn yeyle meelahaas oo dhan bayaadan sidoo kale SCC bay ku soo duulaan iyagoo sheeganay inay yihiin maleeshiyaad macuuslaya oo beesha habar jeclo ka socdo marka taas oo odaygu hadalka keenay hadalkii uu ka keenay markiiba waxa weeye Muuse Biixi baa loo korriyay markiiba Muuse Biixi baa loo gudbiyay Muuse Biixi markii loo gudbiyo fariinta waxa weeye ay gaadhay markiiba ciidamada arariyo la soo diray odayga meeshii baa lagu hareeriyay waa la hareeriyay waxa la yiri hubkiina waa laga qaaday in yaroo staff in yaroo qoryo fudud baa loo reebay akayaal iyo bastooladii waxba loo reebay isagii marka waxa weeye maleeshiyaadkiisii la haybta ahaa ee SCC haybahan ka soo jeeday horgalada uu wato waxay ku go'doonsan yihiin og afkeeda ku go'doonsan bal ayaan darada fiir ayaan hore marba isku dayeen inay baxsadaan laakiin sirdoonka SCC sirdoonka Somaliland wuxuu dhageystaa baa leeyahay maadaama shirkadan Telesom ay telefoonadooda wataan Hargeysa laga leeyahay sheekadooda iyo wada hadalkooda iyo faqooda iyo markasta waxa weeye SCC ay wacaan waa la dhageystaa horgal mahad cambaashe iyo maleeshiyaadkiisa SCC ka soo jeeda Hargeysa ayaa laga dhageystaa marka waxa laga war helay iyagoo SCC telefoon u dirsaday ciidanka SCC la hadlay yani u diyaar garoobay inay goostaan markii laga war helayna waxa weeye waa la hor istaagay dabkaana la saaray halkaasi waxa laga dilay 4 horgal oo hayb ahaan SCC ka soo jeeda ayaa halka lagu dilay kama naxayno horgal intuu qofka uu yahay oo maamulka SNM horboodayo hal la dilaa tiri haadu haday farato baqtiisa waxa weeye kama asan haada iyo qorraxda kama jiidayna muxuu ahaa baqtigiisa halka marka waxa weeye maleeshiyaadkii SNM ee uu Muuse soo amray 4 bay wareen horgallo waxa weeye isaga staff u hay 4 kalena way dhaawaceen odayga marka tana ku cadaatay waxayna yani ay garowsatay ama ay yaqiinsatay SNM-tu aakhir bay waxa weeye goor ay noqotaba ninkan iyo maleeshiyaadkiisa inay goosan doonaan go'doon baa marka la geliyay odayga markii waxa weeye bombo afuufay waxa weeye wuu isciilay wuu ismaray wuu qaraacmay miyaanda waxaan adeegsan ma aqaan yani waa maraan maanta caalima ninkii mahad cambaashe aha inuu waalan yahay inuu fiyo lama kala yaqaan uu kala hadlaya markiiba waxa weeye horgaladii waaweynaa ee deegaankooda ku caasiyay ee nafsiga uu ku dhacay
وسليمان كوري يعني كلا بحي فرطون رجع سواعي سليمان ما أنت محوها هي وحلقني وزير كبيها يبوي ده وارنت الله يا بناي حلقي وحوي جيلال كجري يا بارتو جرتي محا وزير كبيها يبوي ده لو دقي حلقي أصلا معنا لها وحوي بيها يبوي ده ومسق سوق لها بتولدي بيه وجيو أبا الله هنا لكن حلقي وحوي إلهي رحمتي سمالك صورتها ودتك وحوي داد أوقعي ayaa loo magacaabay wasiirka biyaha geediga iyo booyadaha idheen waliga wasaaradda ma maqasheen wasaarad booyada la dhaho wasaaradda biyaha iyo booyadaha loo magacaabay nafsigii baa haya mar wuxuu ka mid yahay saan ognahay yacni SSC ee meesha loo yaqaano Hargeysa maamulkeedu waxa weeye laba beel baa waxa weeye ku nool waa beesha waxa weeye la baxay jeegaanta ee labada reer habana wali habar jeclo habraha wax daba dhiga ma aqaane waxay aabahooda ugu abtirsan waayeen ama loogu magacaay way ma garanay habraha nin kastaba oo qabiil wax wali ugu abtirsan hooyo dhasho islaam dhashay habarna laba dhaw marka wax habraha daba dhiga ma garanay habraha horta iska reebeeno ragii dhalay ku abtirsadeen marka Somaliland habraha aan baa dheefsada SSC intay ka tirsanay dul bahante intuu waxa weeye maamulka SNM uu ka tirsanaa ee uusan qoriga qaadanin beelaha dulman buu ku jiray ee waxa weeye la hagardaameeyo habar muxuu ah sida Samaroon iyo dul bahante waagii hore waxa weeye SSC ku jiray iyo dadkaas oo dhan waxa weeye waa la liidi jiray marka liiditaankii uu waxa weeye meesha la fadhiya isagoo waxa weeye reerkiisa dawladda qadana maanta go'een oo waxa weeye SNM ay xabad waxa weeye wajiga kala dhaceen yaa waji u haya marka wasiirkii biyaha iyo booyadaha iyo waxa weeye faratoon iyo indho ayuu wacay ninka la baxay Mahad Cambaashi wuxuu yiri niman yahow arintaas jirta hadalkaas aan iri hadalkiina yaani waxa weeye balaaya iga raacday aniga iyo waxa weeye nimankii staafka aan watay ee dhul bahantana waan go'doonsanahay waxa weeye oog baan lagu hareeriyay xeera intii nala ooday ayaa waxa weeye hor iyo gadaal bana laga fadhiyaa marka arintii waxa weeye odayaashii horgalada ahaa faratoon iyo indho iyo markiiba waxa weeye Muuse Bixi bay la hadleen xaaladaas ay taagan baydeen xaalada ayaa taagan SNM-tuna waxa weeye dhinacna uga maaranto SNM-tu wali waxay rabtaa inay tiraado yaani maadaama ay rabto inay SSC soo celiso yaani rag SSC ka socdo horgalaa inay wali dhax socdaan yaani iyagu sumcad bay u tahay rag yaani SSC ka soo jeeda hayb ahaan ciidankooda sida Mahad Cambaashi oo kale wasiirada oo kale faratoon iyo indho iyo inay ka dhax muuqdaan Saleebaan Koori iyo sharaf bay u tahay ilaa waxay wali ku doodayaan ragii waxa weeye SSC matalahayay ee saamigooda siyaasadda ku matalaya wali way nala joogaan inay dhahaan bay rabaan marka yaani halkan inay maanta ciidan ahaan ciidan ama korneyla ama taliye sare ama maleeshiyad wata waa Mahad Cambaashi weey marka lama fasiixi karo Muusana marka rajo ka qabaa oo wuxuu rabaa inuu yaani yiraahdo wali waxa weeye Somaliland waa mid oo Somaliland waa mid ku oranaya wali yaani rag dhul baantaaba ila joog oo horgalada maadaama ila joogaan midnimada yaani Somaliland ma ilaalinaya inuu ku doodo rabaa marka odaygii bay u sheegeen ninkii waxa dheen arintaas ay jirta ciidanna waa laga laayay haddana wuu hareeraysan yahay asagiina yaani waxa weeye aad buu u careysan yahay oo wuxuu ku hanjabayaa inuu goosan doono gooray noqotaba marka Muuse iyo odayaashii wax isla qaateen baa leeyahay horgaladii inay oog soo gaaraan oog soo aadaan oog inay soo aadaan bay isla qaateen baa leeyahay talow nimankaasi ma maxbuus bay noqon doonaa mise waa la layn doonaa oo kulay dagaal uu ka dhici doonaa oo kulay dagaal uu ka dhici doonaa marka jamaahiirtu ha ogaato nimanka horgalada ah ee saddexda ah oog bay ku soo wajahan yihiin iyagoo raba inay dhaxdhaxaadiyaan maleeshiyadkan beesha Isaaq ee oog jooga iyo nimanka dhul bahantay la haystayaasha waa hostage captive ma taqaanaan hadda nimankan Israel laga hayo English waxa lagu magacaabaa captives Mahad Cambaashi maleeshiyadkiisu waa captives ama hostages marka nimankan maleeshiya muxuu ahaayay hostage-ka la haystayaasha Mahad Cambaashi horboodayo ee tolkood ku caasiyay ee nafsigu ka soo baxay ayay rabaan inay kala hadlaan maleeshiyadkan Muuse Bixi ee maalin kasta oo say doonaan ka yeelay nimankaasi si la doono laga yeelay waxa xataa igu maqaala muxuu ahaayay 8 caana maalin hal mar waxa weeye cunto la siiyo oo raashinka laga gooyo si yaani waxay ula dhaqmaan maleeshiyadka Muuse Bixi yaani bani aadamnimada ka baxsan inay gunyihiin saas ku garan rag diyaar waa inay tolkood la laayaan oo SSC kula duulaan oo yaani yaysa u galayaan iyaguna waxa weeye maxabiistoodii shalay laascaanood waxa weeye madafiicda ku garaacays ee masaajida duminaysay ayaa waxa weeye macawsa sawirindii waxa weeye garama cadcad iyo waxa weeye qaad awadayaan ku awal marinayna oo hoos galabeedka waxa weeye saa ugu marqaamay soo lama kala gobsana
inay marka isaaqu gun yihiin saas ku garanaysaa inay isaaqu gun yihiin marka ragga waxa la sheegay mahad cambaashi maleeshiyaadkiisu inay go'doonsan yihiin cunadii laga jaray biyihii laga jaray inay gaajo la dhamaanayaan baa la sheegayaa way gaajoonayaan marka nimanka horgalada ah oog bay ku soo wajahan yihiin laakiin warkaas la soo gaaray laakiin ila ma aha wadne oog ay ku yimaadaan inay leeyihiin warkaas waan helay laakiin yaani ma soo bixi doonaan oog ma iman doonaan mise yaani way ka noqon doonaan inay wax laga yaabaa maantaba ay ka noqdaan maantaba inay ka noqdaan baa suuragala laakiin nimankaasi haday oog yimaadaan waxa hubaala inay waxa weeye gacanta firdhiye iyo gacanta garaad jaamac garaad cali inay ku dambeynayaan maxbuus inay noqonayaan baad iyagii waxa weeye nimanka horgalada ay mahad cambaashuur booday maleeshiyaadka marka nimankii nasiib daradaas haysata jamaahiri nasiib darada ayaa haysata xaqi jidkii magaalada oog soo galahayay waa laga dagay haday yaani ciidamada SSC dagaal soo qaadaan oo yaani ay ooda soo jabsadaan xabada u horeysay waxa way xabada u horeysay waxa way si dhibic u dhaxays waxa la rabaa inay kuwan waxa way dhul bahantee horgalada ay muxuu ahaayay mucaaradka inay leysaan la rabaa iyagu yaani Soomaaliland dan kamale SSC na dan kamale waa derbi labada ciidan bay u dhaxayaan inay ku dhax baabaan baa la rabaa cid yaani aaminaysana mala fariin baan soo dirsanay xabadu haday mar bilaabato isaga ma xataa madaxa laga dhufanaya ilaan xabadu indha ma lehe xabadu ma indhay leeda taada kale taleefanadooda nimankii waa la dhageystaa jamaahiri marka yaani si ay wax yeelaan bigiran laayeen war niman yahow daraawiishay nimanka intaad caawa u gurguurataan oo nimanka ay saaq waxa weeye aad dab saartaan nimanka baad ka soo deysaan ilaa teleefanadii waa laga ururiyay halkii teleefon haysana kuma hadli karo markay ku hadleen yaani waa marka 40 laga dilay 40 laga dhaawacay ee waxa weeye meedkooda qorraxda la waray waa marka nimanku ma hadli karaan sirdoonka SNM ta hadalkooda dhageysta waa halkii maray hadleena way eedeen marka say yeelaan bay gareelayeen SSC teleefon uma dirsan karaan xagga nimanka waxa weeye SNM kalsoonida way ka soo dhamaatay oo SSC ba waxa weeye isaaqi marka salaynaysa iyagii ba waxa weeye dhowr jeer damay inay baxsadaan meesha yaani cid is aaminaysa male niman yaani koonay jiro waxa weeye hal mar intay koonada diinaytay dab intay waxa dab xirta isaga sameeyaan ayay baxsan lahayd nimanka isaaqa xabada maridaan dab xirta isaga sameeyaan warnaga reebay dhiilay waan ku dhamaanaynaa marka yaani koonana ma jiraan niman intay dab xir sameeyaan baxsan karo marka baawurtooda la carri kara ma ayaan daradaas haysan Allah ilaahay waxa weeye nafsiga abwaan kaliya mid ka soo baxay nafsiga waxa way dhul baahantay mid ka soo baxay iyo hooyooyinkiin iyo caruurtiini iyo waalidkiin dhamaanay nafsigoodii baa idin ka soo baxay maxbuus baa soo ahaanaysaan oo haystayaal badan sanad u ahaanaysaan dagaalka weyn ee uu ka dhacayana caawa iyo bari dambe wuxuu dhacaba dagaalka dhici doonana waad ku dhamaanaysaan oo laba dhaxda waxa ku jira waa idinka rasaas labada caylaynayso daraawiishay muuqaalka hala sheer gareeyo asxaabtii noo wadaaga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.